ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre Weeliyaan wasiiro taliyaha ciidanka booliiska iyo mas'uuliyiin kale ayaa xariga ka jaray xarunta gurmadka degdega ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo dib loo dhisay. xaruntan waayihii dambe ay ku shaqeynayeen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ayaa dib loogu wareejiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed si ay ugu howlgeliyaan adeega gurmadka degdega ah. xarunta ayaa dib u dayactir lagu sameeyay kadib markii argagixisada Al-Shabaab ay ka fuliyeen weerar bahalnimo 8 bishii Julaay ee sanadka 2018. wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaali ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya xooga saarayso sidii argagixisada Al-Shabaab uga difaaci lahayd shacabka Soomaaliyeed. xarumaha ay dumiyaana lagu sameyn doono dib u dayactir. wax shaki gelin doono meel kasta ay bulshaan ama soo taagan saan si ka fiican oo dhisayna haduu Ilaahay raahdo har habeen waxaan u taaganahay in cadawga la difaaco sida uu soo difaac badan la sameeyay weerarka kadib meel badan ka difaacnay waa burburinay saxafi ugu dambeysay markay soo wareersan ay ka minteen gudaha galaan ala dilay haduu Ilaahay raahdo waa sameeyna waxaan diyaar u nahay har habeen dhiigayna horeena inaan ka difaacno cadawga ummadda Soomaaliyeed meel kasta waxaan soo loo inta wasaaradan maanta way burburiyeen sidii si ka fiican oo dhisin waxaan diyaar u nahay in markasto aan xoojino aan difaacno Ilaahay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale maanta dhagax dhigay dib u dhis lagu sameynayo xerada Sheelar ee ciidanka daraawiishta booliiska Soomaaliyeed oo ah ciidanka ka hortaga rabshadaha sidoo kalena ka howlgala xuduudaha isla markaana la falgala ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka loo baahdo. sidoo kale ra'iisul wasaare Khayre ayaa munaasabada sanad guuradii 75aad ee asaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu gudaha xarunta tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Kaahiye uu dhigay ubax lagu xasuusanayo shuhadada ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee dhiigooda u huray qarannimada Soomaaliya. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.